dhalinyaradii sidaa bay u dhamaanayaan siyaasiyiintiina sidaa bay dhulka u iibsanayaan mustaqbalka dhulkani aad buu mugdi u sii galaya dhacdada xanuunka leh ee aan rabo inaan idila wadaago adinkuna aad u wada duceysaan waa ilaahay naxariista jannaha ka waraabiya saaxiibkayga al-ustaad Ismaaciil Macalin Buule wiilka dhalinyarada ah oo idiin muuqdo Ismaaciil Macalin Buule waxa uu ahaa wiil aqoon-yahana wax badan aan iskala soo shaqeynay waxbarashada macallin soo ahaa ardada soo waxbaray arday badan soo waxbaray isagoo macallin ah dalkiisa u shaqeynayo dadkiisa jahilnimada ka saarayo ayuu haddana go'aansaday inuu ka mid noqdo ciidanka qaranka kadib markii uu u dulqaadan waayay waxyaabaha ay dalka ka sameynayaan argagixisadu dhowr qarax oo qaraxii soobe ka mid yahay ayuu goobjoog u ahaa magaalada Muqdisho oo aan wada joognay iyo qaraxyadii ka dambeeyay oo foosho xumaa damiirkiisa siin waayay wuxuu yiri waxaan go'aansaday inaan jeesta iska dhigon qori qaato waxa uu ku biiray ciidamada commandoska gaarka ah ee danab waxa uu ka ahaa xubin firfircoon iyo sarkaal shaqadiisu si saa'ida u guto dagaal walbana jecel inuu ka qayb galo nin haliyay ah naftiisa u huray ilaahay wuxuu qadaray waa dhibaatada dalka oo dhan haysata iyo ciidanka oo dhan ay dareemayaan isagoo aqoon-yahan ah oo maantay dhalinyarada dalka ku waxbaratay kuwooda ugu aqoonta badan ka mid ah haddana ku darsaday in uu qori intuu qaato furinta uu ku hoydo furinta xabad ka rido oo uu cadowgii la dagaalamo ayaa waxa dhacaysa in mid aan weligii waxbaranin sidoo isagu qadiyada u dagaalamayo aanan xiiseynin oo isagu tuutaha isaga xaragooda qaraabanimo lagu siiyo xidigo lagu dalacsiiyo hoggaanna looga dhigo taasina waa nasiib daro sababtoo ah xornimadii isagoo shacab ah oo si wanaagsan u shaqeysanaya dadkiisana ugu shaqeynayo xornimadii uu waayay oo uu qori ka soo doonay haddana qorigii waa uu ka waayay inuu si sharaf leh wixii uu halgamay inuu helo waxa uu go'aansaday ugu dambeyn inuu dalkan isaga tago waxa uu ogaaday inuusan dalkan qiimo ku yeelanayn qof dhalinyaro ah oo ku dhex waxbartay oo dhibaatadiisa dhex joogay oo laga door bidaayo midka qurbaha ka yimid mid tagsiila ka ah qurbaha oo waxa weeye house care ah oo shaqooyinka ugu liito Yurub ka qabanay weligiina aan wax baranin balse waxa uu haystaa ay tahay baasaboor Yurub ayaa markuu yimaado shaqada lagu tixgeliyaa kee dhalinyaro dalka ku wax bartayna shahaadadiisu macna ma leh aqoontiisu macna ma leh isaguba macna ma leh ka jaahilka ah ee wadamada qurbaha ka yimid ayaa ka sharaf badan taasi waxay dhaxal siisay inuu dalkan ka sabro oo meel ku noolaadaba iska doonto ilaahay wuxuu qadaray oo tiisi ku soo gashay inuu ku dhinto maanta saxaraha Liibiya waa dhibaato waa dhalinyaradii dalkan asoo rafaadsan oo intaan ka dhib badan ku soo waxbaratay u soo dhibaatootay siyaasiyiin qaarkood qurbaha ka yimiday iyo kuwa maafiya ah oo dalka joogo darteed ayayna dalkii sidaas u naceen asay waxay ku dhamaanayaan badaha iyo saxaraha ku dhamaanayaan dhulkan mustaqbalkiisu mugdi buu sii galaya waxaan idinka codsanayaa in ilaahay naxariistii janno ka waraabiyo ninka saaxiibkeena Ismaaciil Macalin Buule aan wada duceyno oo aan ilaahay u barin in ilaahay naxariistii janno ka waraabiyo